waa magaalada ay ku nool yihiin Mona Lisa qoyskeeda. magaaladani waxaa ku nool qoysaska u saaxiibka ah hantida ama maalka adduunyo, marnaba waxaanan laga helin dadka heerka hoose ama faqiiriinta ah. waxay leedahay kaabayaal dhaqaale oo dhammaystiran, waxaana laga isticmaalaa wax walba oo uusan qof faqiira heli karin. magaaladani waxaa laga helaa guryaha ugu quruxda badan waddanka. sidoo kale waxay leedahay saro qadiimi ah oo ay u dalxiis tagaan dadka maalqabeenka ah. waxaana sidoo kale ka maqnayn oo ay magaaladani gaar u leedahay goobo ay u dalxiis iyo nasasho tagaan dadka ajaanibta ah ee markaasi waddanka jooga. kani waa qasriga ay Mona Lisa qoyskeedu ka degan yihiin magaalada. haddaba Mishaaq waa maalqabeen, waxa uuna oday u yahay magaaladan. waa deeqsi geesi ah, waxa uuna caruur oo dhan ka dhalay Mona Lisa oo ah gabadhiisa aadka u quruxda badan. Mona Lisa magaalada waa ka caan, si gaar ah ayay u labisataa, u socotaa, baabuurteeda kala duwan waa ay ka duwan yihiin baabuurta magaalada. quruxdana isha laguma hayn karo. dhalinyarada faqiiriinta ahi markii ay hormarayso waxay dhahaan jiradii kibirka badneed oo quruxda badneed oo sida bisada oo kale ama geeyada kale u socon jirtay. Mona Lisa waxay caan ku tahay lama hadasho wiilasha faqiiriinta ah oo aad bay u yastaa aqyaartaas waqtigu hayo, balse gobonimadu ka buuxdo. maalin maalmaha ka mid ah ayaa wiil libaax ah oo qariska tuur ah huudna ku qaba sida loo shukaansado gabdhaha kibirka badan, balse faqiir ah aadna wax u bartay, dhowr luuqadood oo qaraad ahna ku hadla, ayaa ku yidhi dhalinyaradii: saaxiibayaal, horaa loogu mahmaahay shimbirtii duurduur badan marbay aflibax gashaa. cilada ugu weyn ee wiil faqiira uusan ula kulmi karin Mona Lisa waxay tahay waxay ku caawiysaa baararka taajiriintu ku caweeyaan ee koobka shaaha ahi qiimihiisu qaali yahay. maahir oo xariifkii faqiirka ahaa oo aanan awood u lahayn inuu galo baararka ay kafeega ka cabto Mona Lisa ayaa qorsheeyey siduu ula kulmi lahaa kulanka koowaad. wiilkii bostoorahaas adiga ma warqadana rabaa inay geysid adreeska ku qoran yahay iyo meesha geyn lahayd iigay warqadaha والله أنا قارسيني ورقدان أدريس كذا يمشي لوجا بعنا. السلام عليكم الله. وعليكم السلام سودو. والله لو waxaan wadaa warqad qadiin marka waxaan rabaynaa ku doonsiin. يا ويه مروه واني iyo waraaq baa ku taala. haye waa soo baxay qolka fadhiga iige. haye marwo. ujeedka aan fariintan kugu soo diray waa laba. midda koowaad waxaan rabay inaan kuu sheego inaad tahay gabadha ugu quruxda badan magaalada, inkastoo aan aqoon qiimahaaga iyo dabeecadaada, laakiin waa hubaa inaad saa'id u qurxan tahay. midda labaad waxaan rabay inaan kuu sheego sanadkan soo socda ay bishu ka dhiman tahay in magaalada lagu qaban doono tartanka quruxda gabdhaha. shirkadda Abahay waxay ballan qaaday gabadhii ku guulaysatay quruxda in shirkaddu abaalmarin u sii doonto silsilad, faraanti, jijimo, dhago iyo saacad ka samaysan dahab iyo luul la isku daray. Lisa, waxaan rabaa inaan ku siiyo xogo qarsoon oo lagu bixinayo guusha quruxda iyo labiska. maadaama aan saaxiibo dhownahay khabiir ku takhasusay labiska iyo midabada dharka ku soo baxaya jirka aadanaha, kana mid ah saaxiibayaasha tartanka. Mona Lisa, ogow kulankeenu waa fursadda keliya ee aad ku qaadan karto abaalmarinta shirkadda Abahay, kuna noqon doonto caan laga wada barto dunida oo dhan. danta aan ka leeyahay inaad ku guulaysato abaalmarintan qaaliga ah ma ahan inaad saaxiib dhow kula noqdo, aadna ugama helo gabdhaha quruxda badan sidaada oo kale, ee waxaan jeclahay inay markasta guulaystaan gabdhaha xaafadeena. ka cudur daaranayaan inaanan lahayn dhaqamada carruurta taajiriinta. ma jecli inaan la sheekaysto, la furiisto, raaco, la ciyaaro, la kaftamo, waayo intooda badan waxay ka faanaan oo iska weyneeyaan dadka aysan isku heerka ahayn.
taasina waa calaamadaha lagu garto qofka liidnimadiisa. sidaa darteed haddaad aqbasho inaynu kulanno waxaan ku kulmi doonaa tarjiinka faqiireed. master maahir waa helay fariintaada qiimaha iyo qadarinta badneed. runtii aad baan uga helay habdhaqankaaga shakhsiyadeed. waan ku faraxsanahay inaad fursad dahabi ah si sahlan iigu soo bandhigto, adigoo weliba isiinaya xoogo qarsoon oo ii sahli kara wadada guusha. mahadsanid maahir mar kale. aad baan kuu sharfay haddaan kaaga jawaabay fariintaada, waxaana igu khasbay inaan kaaga jawaabo. waa sida ixtiraamka leh aad u soo qortay fariintaada iyo sidaad ii tiri waad qurux badan tahay. master maahir waan ka helaa dadka ii ammaana, weliba kuwooda taajiriinta ah. waxaan ka cudur daaranayaa master maahir inaanan kugula kulmi karin tarjiinka faqiiriinta. iska daa inaan meelahaas fariistee xataa 10 sano gaari kuma agmarin. hadday suurtagal tahay isbuucaan dhammaadkiisa waxaan leeyahay firaaqo aan kugula kulmi karo. master maahir waxaa jirta maqaaxi aan dadka qiimaha iyo aqliga ku tuumiyo kula kulmo. waxay ku taal dabaqa magaalada ugu dheer dushiisa. waxaa taga dadka diidan buuqa iyo sawaxanka magaalada. qiimaheedu waa qaali, cid kasta ma booqan karto. haddaad aqbasho maqaaxidaas aan ku sheekaysano, xogahana aan ku kala qaadano. anaa qaba tigidhka diyaaradda, dadka qaada iyo casuumaadda casha. isla habeenkaas master maahir waxaa jirta xaflad gabadh aan saaxiibanahay faraanta geliskeeda oo si heer saraa loo agaasimay, ayna kasoo qaybgeli doonaan dhammaan taajiriinta caanka ah. waxaana si khaas ah kuugu casuumaya xafladdaas. markaan cashayno kadib waxaa laga qaadi doonaa heeso iyo qoobka ciyaar. soo labiso oo keliya. waxaan kaa sugayaa aqbalaadda cashada iyo faraanta geliska saaxiibtay si aan kugu soo diro tigidhka diyaaradda iyo warqadda casuumaadda xafladda.